bulshada marka lala kulmayo ee wax loo dirayo nalama waco wax nalooma diro dhanka waxbarashada markaan ka hadlayno 20 dugsi oo deegaanka ku hareeraysan inay xirmeen 3,000 arday ku dhawaadna ay waxbarasho la'aan halkaas ku noqdeen soolarka cadceed ku shaqeeya $1 hay'adaha kuma jiro $1 dawladana kuma jiro cashuurtii gudaha caada laga qaaday iyo cashuurta dadka dibadda aada laga qaadaa lagu dhis waxaana lagu haystaa waxay u badan tahay cashuur qofka bisma dhiibaa lahay laakiin ma ahayn qofka muwaadinka in la dilo aw ganacsatadii ma dadkii jeebkooda wax ku jireen ma joogaan meesha degmada marka anaga imaanaynay waxa yaalay baabuurka dabdamiska ah iyo aragadiyaha yaalay hadda 5 baabuur taala saddexda baabuur oo anaga aan soo kordhinay hal mid ah ay noo gaday أولاً إله ما تسكله مرك الله بعض وحنا ما علينا غيرت كل الدوان كنا كان كسر قيب الشيء ووري قدومية دقمة اللي بعنا ذا قلها الدجان كا المضى ضياع شدقان كا اللي يرى ذا يهوين كيدمان مرتدى كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك كلا تيم كبرنامج كان سواق من قابي SBA ayagana aad ugu mahadcelinayna runtii wax badan oo isbedela ama fahana oo bulshada dhexdeeda ku yimaadaan wax rabnaa inaan SBA nagala soo shaqeysay waxaan rabaa inaan caaw soo jeediyo presentation kooban oo ku saabsan 3 sano iyo xoogaa muddo 4 sano ku dhow maamulka degmada Cadaadad maxaa u qabsoomay intaan kaasi la markaa waxa jira documentary hadda laga diyaarinayo waxyaabaha qabsoomay ama xarumihii la hirgeliyay documentary-gaas markaa 4 daqiiqo kooban oo dib u bilaabanaya rabaan markaa hore fasaxo oo la arko bal xarumaha iyo waxay yihiin kadibna aan station u gudbo halkaas waxa ku dhamaaday dhismaha iyo dayactirka lagu sameeyay xarunta dawladda hoose waa hadda waxa saaran muusiga iska astaana laakiin ayadoo cod saaran yahay lagu faahfaahinayo wixii yihiin iyo waxa insha Allah documentary-ga markuu dhamaado uu ku xiga waxa hadda bilaabanaysa dayactir ayadana lagu sameeyay xarunta haweenka degmada ururka haweenka xarunta dhalinyarada qoraalka hoose la arkaa marnaa tanna waa xarunta dhalinyarada oo ayadana laga hirgeliyay degmada
xarunta waaxda galbeed oo harto la gudubnay dhismaha xarunta waaxda galbeed soo fasaxay qoraalka hoos in la arkay umlana waxa soo marnay xarunta xanaanada carruurta waxaan soo marnay laba qol oo lagu daray iskool Imaam Nawawi hadda waa iskool Billigis oo laga hirgeliyay deegaanka Billigis saddex qol iyo laba musqulood loo dhisay iyo jiingadaan oo markii hore uu laga bilaabay halkan waa xaafada ama deegaanka Harwanaag ee lagu soo koriyay degmada Cadaado la geeyay barakacayaasha in ka badan 117 qoys aadeer degan oo xarun loo dhameystiray dhammaan adeegyadeeda haday ahaan lahayd waxbarasho haday ahaan lahayd caafimaad haday ahaan lahayd ceelkii biyaha waana muuqaalka inta ugu dambeeyay ku jira halkan waa isbitaalka laga dhisay Harwanaag maalin loo tala xari jiray isbitaal qalabeysan oo lagu tala galay dadkaas iyo waxaan codsanahay inaan isdhageysano soo najeysano hadalka ma dheereeyo tiimka dambe dhalinyarada ay gadaal fadhiya aan isdhageysano adinkoo raaliya halkan waa isbitaalka laga hirgeliyay xarunta Harwanaag ee lagu tala galay dadka degan xaafadaas iyo dadka kale oo deegaanada u dhow ka yimaada si loogu daaweeyo هذا ما سنتهين مقال كاسكو من وحو وردعو يا دوكيومنتري بلاران oo wixii degmada u qabsoomay insha Allah oo lagu soo bandhigi doono waxyaabo badan oo hadda ka maqanaa jira waa 4 daqiiqo laakiin kaas waa dheer yahay waxaan u gudbi doonaa qaybta kale ee barnaamijka presentation-kii aan u talagalnaa caawa inaan bulshada reer Cadaado u soo jeedino waa waqtiga xilli dambe iska ah iyo
dadka oo aad laga yaabo inay ama meesha la isku bato oo la daalay waxaan rabaa inaan bubsiyo laakiin wax badan haddaan ka tagto waxaan uga boga doontiin insha Allah muuqaalka gudihiisa hordhacayna dhawaaq gudbi doonaa halkaan marka hore waxaan rabaa inaan si guud ugu dul maro waxyaabihii oo qodobo kadibna aan gudaha u galo dawladda hoose degmada Cadaadad dabacsan danaysantiin 2022 bishii 8 la dhisay isla markiiba waxay la koosatay dagaalkii ahliga ahaa oo qawaarijta lagu jiray ee deegaanadan Galmudug iyo Soomaaliya si guud uga socday maamulka iyo bulshada waxay ka qayb qaateen dagaaladaas waxa ku xigay nabadeyn laga sameeyay deegaanada degmada hoos yimaada diyaarinta xafiisyo cusub maamul ku shaqeeyo dhameystirka maamulka qaybihiisa kala duwan maareynta nadaafadda ansixinta xeerarka dawladaha hoose ku shaqeyn lahaayeen daacitirka buundooyinka iyo laamiga dumay qodida cilmiyeedyo tayeynta adeegyada bulshada samaynta system cusub oo database samaynta master balaanka degmada hirgelinta naqshada qaadista khidmadda adeegga bulshada dhiraynta iyo cagaarinta degmada martigelinta ciyaaraha degmooyinka Galmudug samaynta guddiga horumarinta tirakoobka iyo tirakoobka dadka iyo guryaha ee degmada dhismaha suuqa xoolaha dhismaha xalka waara dhismaha wadada weyn ee dhexmarta degmada dayactirka solar systemka dhismaha xarumaha waaxaha degmada dhismaha iyo dayactirka xarumaha ururada bulshada dhismaha iskoolka deegaanka Belhigis dhismaha iskuul iyo xarun caafimaad ee xaafadda Harwanaag dhismaha xanaanada carruurta dhismaha xarunta caafimaadka xoolaha ee deegaanka Dayaano ee dhaam laga heli gariyay deegaankaas qodobadaas aan soo dul maraan gudaha u gali doonaa maamulku wuxuu dagaalkii ahliga ahaa ee lagu jiray qawaarijta uu la koobsaday uga qayb galay deegaanadan baxdo Cade Kibir Calaweyd Qaayib Shurufle waxay maamulka degmada iyo shacabka intaba ay hiiliyo ugu hayaan hadii ay xalan lahayd dagaalka iyo hadii aan lahayd in ciidamadaas iyo dadka deegaanka oo dagaalamay wixii lagu caawiyo waxa ku soo xigtay nabadeyntii deegaanadan oo ah dad walaalaa deegaanka Jeexdin aagalin soo reebandarto dhaxaya baalle shuurijuge laanweyn deegaanadaas farxad badan oo u jeedin xanan buure u dambeeyeen ilaa dhinacan oo dhan oo deegaanada degmada Cadaadad la ah waxa loo tagay nabadeyn iyo in bulshada meeshaas degan ee ku kala abtirsaday labadan deegaamooyinkan Galmudug in la kala dhex galo maamulku wuxuu ka shaqeeyay in la helo xarun ballaaran oo ku shaqeeyo maamulka degmadu dabcan had sawirro mar hore laga qaado laakiin muuqaalka saad ku arkaydeen xarun aad u ballaaran xafiisyo badan leh oo kala duwan hadii ahaan lahayd xafiisyadii adeegga bulshada lagu qabanayay hadday ahaan lahayd xafiisyadii kale ee bulshada qaybaheeda kala duwan lagu shaqeynayay iska dhaaf markaan agaasimay markii xafiiskan la wareegayay degmada waxa ka jiray xafiiska gudoomiyaha iyo xafiiska xogayaha agaasimayaasha xafiisi ma lahayn madax qaybeed ma lahayn hadeertaana iska dhaaf wax kale waxa laga yaabaa madax qaybeedta la gudbay in hal wax oo maaliyadda ama arrimaha bulshada kale ayada kaligeed 4 xafiis 3 xafiis oo qalabeysan degmada ku leedahay si bulshada adeegeedina loo dejiyo oo loo gaarsiiyo halkan waxa xafiisadii oo shaqeynaya soo aragtiin dhammaan xafiisadii agaasimo kasta u fadhiyo oo ku shaqeynayo kadib waxa loo soo gudbay marxaladii kale maamulka la dhameystiro agaasimayaasha la magacaabay kadibna gudoomiyaasha waaxaha si 17 December 2022 agaasimayaasha 4 agaasimo la magacaabay kadibna 18 bishii shanaad 2023 halkaas waxa la magacaabay gudoomiyaasha iyo madax qaybeedyada meesha waaxaha dowladxoonadooda xogayaasha iyo madax qaybeedyada kala duwan ee degmada ka shaqeynaya aan soo sheegnay wuxuu ka qayb qaatay ilaa xaradheere gargaarkii qaybihiisa kala duwan dadkaas markii laga xoreynayay shabaab dadkii barakacay waxyaabihii la gaarsiinayay halkan
sawirkan ka muuqda waa degmada Hobyo oo degmada Cadaado ay u dirtay xardheere xoreynteedii in gargaarkaas la gaarsiiyo dabcan maamulka iyo bulshadana si kaashanay hadaan u soo gudbo halkaan ilaa iyo dhowr iyo 10 ceel ayaa laga hirgeliyay deegaanada laga hirgeliyay marka waxa kamid ah Qofsaar Duculey Qaradhi Galambe deegaanka Beendhaarte Tuula Sarmaan Dayaano Higlaale iyo deegaano fara badan oo ku xeeran degmada dabcan ceelashaani waxay isku jiraan ceelalay hay'ado iyo wasaaradaha iyo degmada iyo kaashadeen iyo dadka deegaanka laftirkooda contribution ku lahaayeen waxa loo soo gudbay kadibna oo shaqo badan laga qabtay nadaafadda iyo wax badan oo la dareensanaa qashinka degmadan in meelo badan lagu daadi jiray oo godad badan oo god qashin ahayn oo lagu talagelin qashinka lagu qubi jiray oo lagu daadi jiray kadibna qashinkii la aruuriyay waxa la sameeyay hal meel oo lagu talagalay wax badan ayadana qashinkaas ka qabsoomay haddeertaana intii laga sii xoojiyo maahane in laga gaabiyo oo ma rabno meel baa la joogaa insha Allah in laga sii gudbino warjeena golaha deegaanka degmada Cadaado runtii aad ugu maanayno waqtiga joogay shaqada qabtay ayagana waxay ansixiyeen dhowr xeer oo ka mid tahay khidmadda adeegga bulshada ama canshuuraha iyo xeerarka ku shaqeyn lahaayeen iyo hagaha miisaaniyadda iyo xeerarka duurjoogta iyo inaan la layn dhirta golaha deegaanka fadhiyo dhowr iyo 5 xeerarkaas lagu ansixiyay kadib waxa go'day ama meelo badan oo laami kamid ah oo magaalada banaankeeda baabuurta mari waayeen buundooyin waxa kamid ah dayaano buundad ku taalay oo go'dayada laga shaqeeyay waxa kamid ah laanta biigalka ee halkaas dabcan sawirada u jeedin waa shaqooyinkii la qabanayo ama meesha jaban iyo meesha burbursan kadibna laga shaqeeyo la marayo kadib waxaan u soo jeesanay inaan si casri ah loo sameeyo warqadaha dokumentiga ee degmada ka baxa dhalashada sugnaanta meedikaarka waqti badan intaanan xilka qaban ardaydu waxay dib ku qabeen ama dadka raacada dokumentiga dhalashada sugnaanta oo laga yaabo in warqad A4 inta lagu daabaco arday badan lagu soo celin jiray waxaan sameynay warqad security leh system leh xogteedu hadii meel kasta loo raadsho la heli karo waa ku guuleysanay aad warqadaas shaqeeyada waqti badan iyo juhdi badan hadda waxaan ku guuleysanay in qofka maalin systemkaas galay haduu maalinka la soo laabto xogtiisa uu ka heli karo awal waxa laga yaabaa inta of A4 lagu shaqeeyo kadibna laga gudbo hadda xogtiini waa kaysan tahay qof kasto dokumenti qaatay uu haysta sidoo kale ID jir degmada ka bixi jiray walo hadda niiro loo guuray ID-ga isagana saxiix iyo team barcad saariyana waxa lagu daabici jiray banaanka waxaan ka shaqeynaa in xafiisyada degmada meel aan ID-gasan lagu bixin gudahana soo gelin adeegan hada dokumentiyadan ayagoo ka siinta war ka sii qurux badan oo la naqshadeeyay waxaan rajaynaynaa waqti kooban kadib in qofka soo gurigiisa joogo online ku soo dalbado online ku jarto uu san soo lugoy kadib waxaan qaadanaa system database oo lagu talagalay inuu shaqadana fududeeyo khidmadda adeegga bulshada canshuurtana lagu qaado shaqooyinkana ay soo xayirnaan qofku waa safri karaa laakiin soo meesha raba jooga dunida oo shaqada geeskeeda uga jiro hadii looga baahdo warqadna uu meesha soo gali karo hadii looga baahdo saxiixna soo gali karo systemkaasi markii hore kiro ahaa hadda waxaan ugu dubnaa mid dawladdu leedahay oo asayna aan rajeynayno waqti aan dheereen ilaahay idinkiis in la hirgeliyo la iskuna xiro isaga iyo page-ka ama website-ka degmada si halkaas dhaqdhaqaaqa looga soco karo degmada kadib waxaan soo gudubnay inaan qaadno canshuurihii runtii markaan degmadan imaanaynay ma jirin canshuur la qaadayo howlo badan iyo culays badan ay u joogsatay waxaan bilownay August 2023 sanad kadib xilliga maamulka la doortay inaan canshuurta qaadno dhowr madaxaan ka bilownay irdaha markii hore ku bilownay wacyigelin bulshada ah waxaan bedelnay magaca canshuurta dadka aad sensitive u hay diidanayeen waxaan u bedelnay magaca la yiraahdo khidmadda bulshada si bulshadaana bal horta ayagu ay wax u keensadaan waxaan dareensanahay maamul iyo degmo iyo bulsho systemina ma shaqeeyo aan dhaqaalahiisa wax badan waa la soo jiidayay madaxyaha hadda ilaa iyo dhowr la qaadaa
walow ay safaan oo la farkamo qodna taho wax badan oo badan ay dhiman yihiin laakiin waxaan isleenahay waa bilow waxa loo gudbi doonaa stage ama maamulka in ka dambeeya ama systemka in ku soo xiga ay qaadaan waxa la mideeyay akoonka lacagta ku dhacayso si looga ilaaliyo qof shakhsiya in numberkiisa uu lacag ku qaato akoonkaas degmada si official oo furtay kadibna systemkii lagu xiray si shorti number yar oo shorti kooda la sameeyay lacagtuna si fudud ay ugu dhacayso halkaas u galayso akoonkaasi cid lacag ka saari karto cid la yaqaan meel ka baxsan oo intaas lagu tala galana ma jirto si xisaabta iyo xisaab celinta wixii meesha soo maray u fudaato runtii waxaan halkaan ka muuqdaa martigelintii koobkii degmooyinka galmudug oo wax badan oo shaqo ama juhdi ku baxday in degmadan ay martigeliso ilaa 20 degmo oo ay ka mid tahay degmadan Cadaado wax badan oo ka hirgalay oo in degmo isku keeni karta intaas oo bulshada tartan nabada ilaa 2 bilood ku dhawaad dhowr boqol kun oo qof haysan marti u haayeen kadibna si nabada ku kala tagaan waxay ahayd guul la gaaray waxaan rajaynaynaa ama meelo badan oo hadda jira leeyahay warkoobkii garoonkii lagu qabtay dayacaaba ka jiray xayta sidoo waxaan rajaynaynaa waqti dhow insha Allah asagoo ka qurux badan garoomada kale ee dalka ama deegaanada noo dhow ku yaal isagana insha Allah in la hirgeliyo howshiisa iyo qorshihiisa socda maraan dheereenna waa sugeynaa inuu yimaado ilaa idinkiis waxa ku xiga oo sameynay tirakoobka guryaha iyo dadka bulshada degmada reer Cadaado wuxuu ahaa barnaamij si volunteer ah oo shaqeynay oo hore dhacaha waxa la diiwaan galiyay tirada guud dadka la diiwaan galiyay waxay ahaayeen 35334 wax badan oo badan dhimanaa dadka oo si hore dhaca fanki iyo wixii systemkii lagu tala galay oo gaab ku jiraan u joojinay waxa rag ahayd 17490 waxa dumar ahaa inta la diiwaan galiyay 17844 waxaan rajaynaynaa numberka meeshan ku qoran number ka fara badan meeshan jira oo ka badan inta meeshan ku qoran waxaan u diyaarinaynay tool iyo hadda waxaad arkaydeen qalin caado erid lagu qorayo hadda waa ka bedelnay waxaan soo wadnaa bir ayada aan jabeyn oo darbiga ama erid lagu dhijinayo oo serial numberka uu ku qorayo gurigaas si guriga ku xiga markaas loo gudbo waxay ahayd shaqo adag oo waqti badan la geliyay kadibna aan rajaynayno in waqtiga ka dhiman muddadeena ama systemka nagu xiga bilay isugu horeeyo ku dhameeyo waxaan hirgelinay suuqa xoolaha runtii suuq casriya oo dadka deegaanka wax badan ka anfacay laga hirgeliyay degmada oo ilaa 100 markaan imaanaynay degmada waxa xoolo loo kala iibsan jiray geed hoostiis geedkaasi iska dhaaf bini aadamka xooluhu har kuma haysan dadka suuqa ka shaqeeya ama imaanaya masquulo iyo meel salaad ku tukadaan ma dhaweyn dhul weyn oo baaxad la boqol oo 4 hangar laga dhisay oo xaruntii daawada xoolaha laga dhisay masquulo dumar rag kala gooniya leh biyihiisa leh hadda la hirgeliyay xarig ka jira madaxweynaha dowladda Galmudug wasaaradda xanaanada xoolaha iyo degmada iskaashanaysa ayaana suuqaasi hirgeliyay wax badan oo degmada ama dadka deegaanka contribution ku lahaayeen oo jiraan kadibna meesha waxaan kaga muuqdo hortiin ka muuqda waa barnaamijka xalalka waara 117 qoys oo buush iyo cooshada deganaa kuna deganaa dhul dad Islaameed leeyihiin dawladda hoose waxay u dhistay guryo waxayna ku wareejisay dukumeenti sabraloog leh 28 boos ah waxa ka dhisan 2 qol iyo musqushiis waxa loo geliyay biyihii waxa loo geliyay waxa la sameeyay iskoolkii waxa loo sameeyay xarunta caafimaadka hadda qorshu yahay in solar system lagu xiro suuqna loo hirgeliyo meeshan
ولا دقمة عداد وسؤال مربضان صلى الله عليه وسلم حلو دسواي حقو آذي حقو كبحي والله دقا آوي سوردان يوحى 40 waxaan u soo galiyay dabcan maamulku wuxuu ka shaqeeyay koow uu qabtay shaqada laamigan caada in la dhiso waxa laga shaqeeyay naqshadiisa in la helo oo ku baxday waqti badan injineer badan la xiriiray ee dhahan lacag badan ku sameeynaa kadibna injineer ka shaqeeyeen naqshadiya la helay kadibna waxa la soo saaray guddiga ka shaqeey lahaa guddiga horumarinta bulshada degmada la isugu yeeray qayb loola fadhiistay culimada odayaasha dhammaan dhalinyarada waxa la qeybiyay lacagta laamiga ku bixi lahayd guryaha laamiga ku hareereysan ardayda iskoolada dhigata miiga intaba lacagaas waa la kala qoondeeyay waxa loo sameeyay akoon horumarineed lacag tii ugu horeysay 15,000 oo dawladda hoose ay ka soo qaaday bulshada reer Cadaado South Africa lagu shubo lagu bilaabay waxaan aad uga xumahay shaqadaas iyo juhdigaas iyo waxaasan daldalay oo dhan inay ku soo dhamaatay firfirsi iyo caqabad anaga dhaxdeena ka timid bulshada reer Cadaado ka timid oo dhinaca kale loo fiirshay laamiga ma qaaban hadda habooneen in loo jeediyay oo ama guddiga la duray guddigii horumarinta la duray waa la bedelay guddi cusub lagu bedelay shaqada in la dhaqaaqdo markii la rajeenayo haddana waxyaabo aan u fiicneen bulshadan iyo deegaankana loo gudbiyay aad baan uga xumahay 3 sano 2 sano kadib hadallo iyo ficillo aan fiicneen oo ficilin u noqday laamiga soo dhismo inuu laabiga noo burbursan yahay inta sana u dhaafo mar rabo laamigaas laakiin waxaan rajeenaynaa ilaahay idinkiisa in bulshada mar labaad isku xilqaanto waxa yaala xogtii laga diyaariyay waxa yaala naqshadiisii waxa yaala dhaqaalihii sida loo kala jajabiyay waxa akoon ku jirta lacagtii ugu horeysay degmada ku shubtay wali waxaan ugu jirnaa qareemidii waxa noo timid ganacsato iyo madax xoolo reer Cadaada waxay ka codsadeen bulshada reer Cadaado inta ganacsadooda iyo culimadooda u yareen halka kiiloomitir u horeeya reer Cadaado dhista shanta kale anaga dhisaynay ayadiina waan alka waay caawa tiimka fadhiya waxaan marqaati gashanaynaa intaas loo qabtay waxaan ka codsanaynaa in hada shaqadaas la dhaqaajiyo adinku waa noqotiin qareen laamigan Cadaada iskale shakhsi gooniya male systemka maamulka joogana ka tagi doona waxaan rajeenaynaa in waqti dhow oo laami kale oo weyn yimaado si deegaano badan oo maanta nasiib u yeeshay laami oo soo waqtiga soo bixin ogeena helaan laakiin anagu horta bal contribution keeni iyo shaqadeena aysan meel cid la ku dhamaanay aliisa wax isku dayno laamiga intaas aan gudbaa inuu hirgalana barajeenaa waxa la dayactir lagu sameeyay solar systemka degmada kan imaanaynay solar systemka waa dansanaa waxyaabay ugu horeeyeen oo ku dhaleecay jiray hayeeno magaalada waa mugdiye toosasha la shidaa laakiin dhaqaale laga helay bulshada reer South Africa deegaanka ku abtirsada iyo canshuurta dawladda hoose ee bulshada laga qaadayo la isku kabay waxa lagu dayactiray 76 solar oo laamiga dheer saaran iyo 30 leer oo saaran laamiyaraha iyo wadadaas karaama ee cali diiba lacagtaas 25,000 lacag ku dhawaayay 15,000 waxa bixishay gaasar reer South Africa inta kale oo saartana waxa ku dartay dawladda hoose waxayna ahayd canshuurihii dawladda hoose ay dadka u qaadaysay waxa ilaa hadda daaran oo ugu bariyaa solarkaas waxay faa'iido badan u leedahay maamooyinka ku ganacsada habeenkii caanaha gada iyo bulshada kale ee habeenkii isku socodka ayagaba inta ka faa'iido waxaan rajeenaynaa inaan si ilaasho doono haddii dayactir u laabtana insha Allah dib u dayactir doono haddii cilad ku soo baxdo halkaana waa waxaad muuqaalada ka daawaysa waxa la hirgeliyay xarumaha waaxda karaama ee galbeed oo community centers loogu talagalay in bulshada loogu adeego dabcan xaafadaha magaalada waa sii balaaranayaan waa sii fidayaan qofku wax kasta oo soo doonto degmada waa xarun degmada u yimaad aan wax rabnaa in waqti dhow laga gudbo oo qofka xafiiska ugu dhow ee xaafadiisa ama waaxdiisa uu ka qaadan karo wax allaah wuxuu degmada uga baahnaa hadda waa la qalabeeyay systemkaas cusub degmada marka la qaatana waxaan rajeenaynaa in wixii degmada looga baahnaa loo soo aadi jiray loo safri jiray
xafiisyada iyo xarumaha afarta waaxood ee degmada laga qaato. waxaa dayactir iyo doomayn lagu sameeyey xarunta ururka hooyooyinka oo runtii markii hore ahayd silig aan ku habboonayn inay ku shaqeeyaan dumar ama hooyooyin oo markii bannaanka laga maraayo qof kasta gudaha ku jira loo jeeday dhaxdana ka ahayd meel jaban siligiyaa laga bedelan derbiga lagu xiray interlooga dhexda loo dhigay qolalkiina mutareel loo saaray. sidoo kale waxaa la hirgeliyey xarunta dhalinyarada degmada. dabcan dadka meesha fadhiya dhammaan caaw qolkiiba 99 waa dhalinyaro. waxa xarumahaas oo dhan loo hirgelinayaan waxay ahayd in ururada bulshada la soo dhiso. laga yaabo dad been isleeyihiin ruuxa waa la dhisay leeyahay ma shaqeeyaan miya way shaqeey doonaan inaan haysan ay ka xuntahay inaan haysan horta haddaan haysano way shaqeynayaan wayna dhaqaaqayaan. waxaan ayadana rajeynaynaa in ururka dhalinyarada iyo dhalinyarada degmaduna ay ka hirgeli doonaan inay shaqeyso goob dhalinyarada ku kulanta noqoto kadibna fikradaha aaraa isku dhaafsadaan. waxyaabaha noo qorsheysan sanadkan 2026 inta ka dhiman waxaan soo sheegay waxyaabaha noo qabsoomay. waxyaabaha noo qorsheysan sanadkaani inaan qaban rabno waxa kamid ah interlock aan saarayno wadada suuqa dhex martay magaalada. wadadaas weyn ee aada ilaa oo furso oo labada dhinac ka baxda labadaba waxaan rabnaa inaan saarno assessmentigeedii qiimeynteeda hadda socota. waxaan dawladda hoose oo kaashanaysa mashruuca dawlad kaab iyo bulshada reer Cadaad saaro doonta insha Allah. waxaan rajeynaynaa bisha soo socota inuu interlockgaasi bilowdo. waxaan dalban oo aan diyaarinay gaari basa oo loogu talagalay xaruntii meesha ku jirta xanaanada carruurta in uu adeego waa carruurta reer Cadaad ayagana uu kala gooshaya maadaama xanaanada cabaar jirto inuu qaado gaarigaasna insha Allah waa noo soo socdaa. waxaana iskale xanaanadaas waxaana iskale bulshada reer Cadaad oo aan rabno inay xanaanadana shaqeyso hooyooyinka iyo waalidiintuna ay uga faa'iideystaan ciyaalkooda. waxaa qorshuhu yahay inaan solar system ama street light ka gelino harwanaag. sidoo kale degmada iyo xarumaha kale oo dawladda oo sheegan ku xirno solar si korontadana looga baaqsado ama haday korontada baxdo adeegii bulshada u joogsan. sidoo kale 10,000 oo geed in ka badan waxaan ku beerarnaa xarumaha danta guud wadooyinka iyo laamiga iyo meelaha kale. sidoo kale waxaan hirgelin rabnaa system cusub oo database oo degmadu leedahay oo dhammaan dakhli aruurinta hadda mid ka sanad waa kilo boqolkiiba 10 lacag ka go'da $100 mar $10 ka go'da. hadda waxaan u soconaa system anagu aan leenahay oo Cadaad iska dhaxasho aan cidna ka goosan karin cidna ka haysanin aan u gudubno kan dan kirada bixi weyn waa la jaraa waa macnaheedu. laakiin midka aan soconaa mid anagu leenahay dhalinyaro reer Cadaad loo tababarayo ay ku shaqeynayaan. sidoo kale qorshadeena wuxuu yahay dhismaha iskoolka farsamada gacanta oo wax badan aan rabno inaan bulshadaani aysan kaliya ku tiirsanaan shaqooyinka waaweyn ee shaqooyinka yararkaan ay bulshada qabsadaan. waxaan ka shaqeynay farsamada gacanta juhdi badan aan gelinay in horta balasiyaha macaan iskoolka lagu sugin sanadkii 2024 ku dhawaad 600 oo qoys oo DBS ama kaamka degan waxa loo tababaray farsamooyin kala duwan haddii aan la harqaanka haddii aan la calasaarka cunno karinta dhismaha guryaha mobilka. haddeetan 150 dhalinyaro haddana sidoo kale qorshaha ku jirta in maalmaha ay u bilowdaan. sidoo kale waxaan hadda qorshu yahay inaan dhisno dayactir ku sameeyno xarumo caafimaad iyo iskoolo. xarumahaas waxa kamid ah MCH laga hirgelin rabo xarunta Waaberi oo aan isleenahay waaxda Waaberi maadaama ay wax weyn degmada kamid noqoto inay MCH iyadoo hesho waaxaha kale ee Bakiin iyo Waaberi iyada labadaas qorsho hadda ku jiraan. sanadkan 2026 dhamaanayo labadaas laba MCH laga hirgeliyo. sidoo kale waxaa jira dhowr iskool oo qaybtood dayactir rabaan sida iskool horseed oo aan qolal iyo dayactir ku sameeyay rabno ayagana la balangareeyay. iskool kaamil oo ah iskool danguuda haddana kira ardayda ku jirta asana
in qolol loo dhisaa qorshuu yahay sidoo kale dadka degan Harwanaag kaliya waxay haystaan biyaha hadda waxay watarkooda ka isticmaalaan in guri kasta biyooda lagu leexiyo loo geliyaan qorsheenayna presentation-kayga waxaan rabaa inaan inta isku soo gabagabeeyo gadaal waxaa jira kaliya uun caqabadaha degmada hortaagan caqabada ugu weyn ee degmada hortaagan waa dhaqaale la'aan dakhliga gudaha ee degmada aad u yar yahay aad uga xumahay degmo inta soo sheegtay caawa oo waxaasaan waxaasaan noo qorsheysan leh in bishii dakhliga soo gala bishii ugu bato $8,000 xadireemeysiin wax kastoon sheegnay oo la qabtay haddaana 100% wada qaban contribution aan ka rabaa $100,000 lagu hayaa wax ku darso contribution 100% dulga $20,000 laga rabo in afka taagtaagto haddana inaad dhaqaaqdid wixii ku xirantaa dakhli in la helo caqabada ugu weyn degmada haysta waa bulshada oo u diyaarsan in dhaqaalaha bixiyaan waxaan codsan lahayn in degmo iska dhismayda ama mashaariic iska dhismaaya ama guryo iska dhismaaya ma jiraan unless aan dakhliga baxsano unless aan cashuurta bixisano marka cashuur bixino kadib feedback laga heli karaa inta kale waa saameynta cimilada baahida bulshada isku xirka wadooyinka iyo si guud oladaha soo laalaabtay ee deegaanada ka jira galmudug oo ayagana saameyn mararka qaar ku yeesha dhaqaalaha iyo bulshada laftirkeeda aad baa mahadsantihiin tala soo jeedinteena u dambeydana guulaanadkaas rabaan aan ku soo celiyo fariinta maamulka meesha ugu dambeeyda wadajir isxilqaan ayaa lagu dhisi karaa dawladnimada wadajir isxilqaan lagu dhisi karaa dawladnimada waxaan u baahanahay in bulshada gacmaha is qabsato maamulka iyo dadka ka shaqeynaya danta guud la shaqeeyo markaasaan heli doonaa adeeg kasta oo u baahanahay si ay dhageysateen aad baa u mahadsantihiin oo mahad celinaa mar kale ciyaartii kulankan soo qaban qaabilay SBA aad baa mahadsantihiin maaragtay wax yar aan is dhageysano waa yanaan inta iska gees hadalno maaragtay waqtiga isku dheeraynin annagu adinkoo raalliya aan is dhageysano waa laba kelmo waa mahadsantihiin dhammaan gudoomiyaha xogayaha iyo maaragtay golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay shirkan waxaan rabay laba su'aalood oo yar yar inaan weydiiyo maamulka degmada gudoomiyaha iyo xogayaha iyo hadii ilaahay idmaayo xildhibaanada cidii ka jawaabaysa iyaga og su'aashayda koowaad waxay tahay gudoomiyaha weydiinaya gaar ahaan ay u qosaysaa gudoomiye maxaa sababay marka bulshada xubnaha ka tirsan markii laga yimaado golaha deegaanka bulshada kale qaybaha ka tirsan sida agaasimayaasha kale in laga waayo qayb kamida bulshada oo ururka naafada sababtu maxay tahay ma mudna miya wax ma qaban karaan miya dabcan adinka ka jawaabi doona su'aashaas su'aashayda labaad waxay tahay maxaa dhacay in badan ayaan idin nimid idinku soo noqonay inaan dhul haysano annagoo ururka naafadan idin sheegnay in loo dhiso inaan rabnaan idin sheegnay in xaafadihii loo dhiso maaragtay hooyooyinkii loo dhiso caruurtii loo dhiso aw xuquuqdeeni su'aal saddexaad ee daba taalo waxay tahay isla annaga naqusaysa bulshada marka lala kulmayo ee wax loo dirayo nalama waco wax nalooma diro ma waxaad aaminsantihiin inaynaan waxba qaban karin mase inaynan bulshada ka mid ahayn inaad aaminsantihiin saddexda su'aalood la iga jawaab raxiim magacaygu waa Rufaaci Maxamuud Xuseen waa degmada gudoomiyaha iyo xogayaha xildhibaanada waa aad u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan laba su'aal weydiiyo warbixin 4 bil ka hor diirsha show lagu soo bandhigay waxay sheegaysaa 20 dugsi dhanka waxbarashada markaan ka hadlayno 20 dugsi oo deegaanka ku hareeraysan inay xirmeen 3,000 arday ku dhawaadna ay waxbarasho la'aan halkaas ku noqdeen barnaamijkaas degmadu maysan ka jawaabin barnaamij aad u culus u ahaa hadda maxay degmadu ka leedahay arrinkaas haddii ay jirtana degmadu maxay ka qabatay midda labaad waxay tahay waa isla waxbarashada
sidoo kale isla wiigii ka dambeeyey dugsiyada degmada qayb ka mid ahaa waxay ka cabanayeen in galaasaska ay ku yaryihiin qaar oo overload badan uu ka jiro ay u baahan yihiin dhisme. degmadu maxay arrinkaas uga jawaabtay? taas waa maamulkiiaba hadlaba dugsiyada. arrinkaas maxay degmadu uga jawaabtay? maxayse qorshe ka leedahay maadaama hadda qorshihii naloo sheegayay uusan ku jirin qorshayaashii hadda la sheegay aysan ku jirin dhismahaas? maxaa halkaas laga leeyahay? midda saddexaad waxay tahay waa su-aal yaroo iska fudud. eventis waa isla waxbarashada. iskuulaadku eventis ay sameeyaan. celceliska 3 sano waxaa laga yaabaa 150 oo eventis inay sameeyaan dugsiyada. percentage-ka uu gudoomiyuhu ku soo xaadiray waa 10 camal. marka soo xaadiristaasna ayadana dhiirigelin u ahaan lahayd iskuulaadka iyo ay u noqon lahayd. marka arrinkaasna maxay ka leeyihiin? waxaan ku rahdaa hay'adaha samafalka iyo dowladda hoose. tusaale ahaan marka laga hadlayo iskuul in la ballaariyo ama in la sameeyo inta badan waxay ka yimaadaan waxaan ku rahdaa dowladda dhexe ama waxay ka yimaadaan waxaan ku rahdaa galmudug. marka dhawaanna waxaan dareemayay gudoomiyaha degmada mar uu ka hadlayay barnaamij lagu daafurayay MCH-ka in qaabkii loogu talagalay mashaariicda ka imaanaysa galmudug ama maxaan ku rahdaa dowladda dhexe inta badan mararka qaar ay dhacdo in overload uu dhaco ama meel aan loogu talagelin lagu maareeyo ama sidii maamulka degmada inta soo maray oo u qorsheyn lahaa aan loogu talagelin ay u dhacdo in dad si gaar ah loogu naasnuujiyo. marka qaabka ay ula shaqeeyaan hay'adaha samafalka iyo dowladda galmudug oo mashaariicdaas loo balayn gareeyo laftirkeeda inuu gudoomiyaha ku daro su'aashaas waa rabaa gudoomiyaha inaan siiyo. gudoomiye insha Allah waa geli doonaa. waxaan rabaa inaan su'aalaha qaybna ka sii hadlo kadibna aan gudoomiyaha ku wareejiyo. aad bay mahadsan yihiin ustaad Rafaaci iyo xogayaha ururka naafada Ciise iyo Cabdiraxmaan. haddaan ka jawaabo qaybtii hore xogayaha ururka naafada Ciise uu soo jeediyay oo ahayd maxaa looga waayay maamulka qaybihiisa kala duwan dad ka tirsan dadka baahiyaha gaarka qaba ee bulshada. dabcan liidnaanna ma ahan leena nicmeyn laakiin waxaa laga yaabaa inba horta shaqaalaha hadda ka shaqeeya degmada inaysan levelkan hadda la joogo aysan markii horeba joogin ama tareynta la eeg jirin. marka shaqooyinka soo socda oo balan gareysa ay ku jiraan inaan naxsuusan aad ugu maasan tahay in la inku soo darana waa mudantihiin aqoon ahaan iyo xirfad ahaanna inaan u liidan oo qaybtiinayba institutionada kale ku jiraan aad baan u dareensan. midii ahayd xarunta naafada ah meesha maanta waxa laga sheegay xarumaha bulshada waxa ku dhacay leeyahay waxyaabahan adiga iyo gudoomiyaha daraadkooda hadlayna kamid ahayd in lagu daraayo qorshaha sanadkan waana ku jirtiin carafkeena aan ku weereedin insha Allah waxa leeyahay sigar anaga go'an tahay marka xilkan wareejeyno in urur ka soo degmada ka jira xaruntiisii oo shaqaheeda inuu helo. waxaana aan loobi doonin adinka urur ahaan iyo bulsho ahaan in contribution-ka la ka rabo bilowgina la ka rabo dhulkii oo qalala meesha ku yaala ciise taga deeyeen horta waxun dhaqdhaqaajiya dhagaxaana ku soo rogi Allah ka dhigay. midda ugu dambeeyda ururka naafada si guud ama dadka baahiyaha gaarka qaba dib gooniya iyo nacayb gooniya iyo wax gooniya loo qaba ma jiraan. waana ka xunnahay haddaysan ka dhex arag ama aysan ka dhex muuqan fantiyada jira. waxaan rajaynaynaa inaad warta noo soo jeedana xasuus ka dhigano wixii dhaca waxa dambana insha Allah ay qayb ku noqon doonaan. waan ka cudurdaaranaynaa haddaan hore uga arag qaybaha kale dugsiyada xirma gudoomiyaha u day doona iskoolaadka camanay sarfaaci waxa malaha uusan maqlayn aan warbixintan jeediyay sanadkii la soo dhaafo 2022 dhamaadkoodii waxaa la hirgeliyay iskoolka deegaanka Bilihigis
waxaa wax lagu daray iskool Imaam Nawawi waxaa wax lagu daray Sultan Ahmed Nuur waxaa wax lagu daray iskool Daryeel kaamka Daryeel waxaasoo dhan aan daldalayna waa iskoolada magaalada ku yaal sanadkan waxaa balangareysan xarunta waxaan ka tagay waxaa la dhisay iskoolka Harwanaag sanadkan waxaan sheegay qorshaha waxaa ku jira oo la dhisi rabaa iskool horseed oo qolo lagu daraayo dayactirna loo sameeynayo iyo iskool kaamil oo asna dhismo la sii rabo iskoolada degmada ku yaal ka mid yihiin hadda fursadu markasta iskoolada dhan kala gaarto laakiin midba wixii laga gaaro horseed oo kale caqabadaha ugu weyn ka jira waxay ahaayeen saddex qol loo dhisay hadda ka hor qolalkii kala xirxireen dadka tuu qaadi waayeen waxaan rajaynaynaa in ilaa September horteed in qolal kale ay helaan kuna ballaarsadaan iskoolada kale degmada ku yaal ku soo soconaa gudoomiyaha ku soo horjeed doona wixii ay ka tagay kuwa kale insha Allah soo san yahay maantay presentation kana caawa asaga noo soo jeediyay su'aalihiina inta badan asaga ka jawaabay waxaan rabaa kaliya inaan ka jawaabo su'aasha ah horta su'aasha walaalkeen dadka maxaa tiraahdaa baahiyaha gaarka qaba waa laga jawaabay su'aashiisaan rajaynayo laakiin waxaan rabnaa u sheegno xilalka inta badan ba horta la qaybiyay marka eeda anaga kaliya ma nihine horteen kuwa xilalka qaybiyana waa leeyihiin oo waa naga horeeyeen bilmatal xildhibaanada golaha deegaanka hadda adiga golaha deegaanka kugu matala waa ka horeeyeen kuwa baahiyaha gaarka qabana kuma jiraan horteena la qaybiyay inta kale intii xogayuu ka jawaabay wayo waa dadaali doonaa haddii alla idmo dadkana kama liidataan bal in leedin ku dhiirigeliyo oo adinka maxaa tiraahdaa leedin kugu hormariyaa mudantiin haddii alla idmo waxaan samaynaynaa baahi walba awood looga jawaabo iyo dhaqaale looga jawaabo hadda ma haysano waxaan sheegnay wixii soo galay iyo sidaan uga jawaabnay baahiyaha ku hadda adiga sheegtay kuwa kamid yihiin waa ka jawaabi doonaa xarunta baahiyaha gaarka dadka qabana insha Allah qorshahana waa ku darsanaynaa haddana degmada maadaama xafiisyo fara badan laga hirgeliyay xafiiskiina idin siinayna waan idin qalabaynaynaa inaad timaadaan la idinka rabaa hadii la yiraahdo oo aad halka ka bilowdaan oo anaga guri gooniyaha naloo dhiso iyo meel gooniyaha naloo dhiso awoodda hadda la hayo ma ahane waxa hadda la hayo inaad ku sii hawl bilaabataan xafiisyada degmada xafiis la idinka siinaya halkaas inaad ka shaqo bilowdaan rajaynayna hadii la yiraahdo dugsiyada xirmay oo ustaadka uu sheegay waa run 20 dugsiya xirantay guriyuhu markuu soo aruurinayay oo xarumahaas iskuulada xirmay laga hadlayay horta xogta meesha oo keenay degmada ahayd asagu inta baxay oo 20 iskuul meeshii ku yaalin tagay oo mid walba soo qoray ma uu soo kor istaagin laakiin xogta meesha laga helay oo wariyuhu xogta uu ka qaatay degmada ahayd wayna jirtaa waxa sababay qaar badan oo kamid ah tabardarra sababtay qaarna waxa sababay khaladaadkaas waxa kamid ah waxaan jeclaan lahaa ragga wax yar dhalinyarada inay wax yar xoogaa aan isdhegaysano ustaadka hadda waxaan rajaynayaa iyo rag badan oo asaatiid halkaan fadhiya marka hadda tuulooyinkaas iskuulada ka xirmeen mid kamid lagu qoro horta maalinta koowaad cabashay bilaabayaan wasaaradda degmada hana la ka soo bedelo tuuladaas baadiyaha ma joogi karno kama shaqayn karno meel aan ku hoyan male nooma qalanto inta badan sida ku xirmeen laba tuulan tusaale in siinaya tuulada la hog dugaag iyo tuulada la yiraahdo Xinjilo macallimiina ku qornaayeen macallimiintii ku qornaa macallimiintii mid kamid ah hooyadiis yaa haytay wiilka meesha hal iga soo bedelo meesha duurka wiilkayga hal iga soo bedelo intaas oo sano wax soo barayay dugsi saraan ka soo saaray jaamacadan ka soo saaray dacwadaas degmada ma imaan wasaaradda iyo ka kor ilaa madaxweyne siyaad annaga ayadoona la kala tashana la soo bedelay macallinkii macallinka la bedelkiisa lama geyn iskuulkiisa soo ku xir sidoo kale Xinjilab gabadha ku qornayd gabadhii waa la guursaday
ninkeedii wuxuu yiri meel kale igu soo bedelo waa la bedelay macallin kale bedelkii lama geynin iskuulkii waa xirmo maxay degmadii ka qaban kartaa degmadu iskuulada xirmay macallimiin umada keeni karto wasaaradda cabashada u gudbinay isla markii aan gudbinay waxba lagama qabanin sanadkii dambe macallimiin la qaatay macallimiintii aan qorsheynay macallin walba marka meel tuulo loo qorsheeyo tuulada wax ka soo dhig way ku adagta kuwa hadda jooga oo tuulooyinka wax ka dhigana dhammaantood cabashooyinkooda waxay yaaleen wasaaradda degmada madaxtooyada meel walba cabashadoo taala 2 sano 3 sano ku cabashadu waxay leedahay ka soo bedelato hebel macallin walbana in tuulada wax ka soo dhigo uma fududo uma diyaarsana eedaas marka anaga macallimiinta saarayna macallimiinta degmada joogtaan saarayna macallimiinta wasaaradda waxbarashada ay hayrgelisay mushaarka ka qaataan saarayna deegaanka aad u dhalateen mushaarka aad qaataan deegaanka ku qaadataan inta is qorshaysan at least nimo tuulada u dhashay si gooniya ha u naasnuujiyo oo 5 maalin waxbarashada wax ka soo dhigo annaguna waa caawinaynaa laakiin macallimiintii lagu kari waayo tuulooyinka oo culays ka keenay meeshii aan rabnay awoodda inay nala saaraan wasaaradii iyana awoodii la rabay lama saarin horta iskuulada xirmay macallin la'aantaas ayaa ugu badan waxay u xirmeen waxayna u baahan tahay in heer wasaaradeed iyo heer maanta federaal la kaashado iskuulada fasalada ay ku yar yihiin ee macallimiinta abtay horta waxaan rabaa in hal misaxo maamulaha cabanaya ee meediyaha ka cabanaya ujeedkiisu ma ahan in wax saxmaan kaliya nooc kale ku dhex jira macallinkaasi intuu san caban inuu horta yimaado xogtan soo gudbiyo waxaan leenahay isku duwo waxbarasho inuu xogta u soo gudbiyo yira problemkana taagan isku duwona degmada u soo gudbiyo degmaduna wasaaradii iyo madaxdii ka sareysay u soo gudbiso sida heer rajaga saxda waa sidaas laakiin markaad aragto qof asagu inta meel tagay video iska duubaya ee dhahaya dhibaato haysata fasalla ugu yar baladinku micnihiisa fasira muxuu yahay ma u jeedaa waa nooc dacaayada marka dhinac laga fiiriyo okay kuwii jira marka sida wax u jiraan haddii ay isagoo u jiraan haddana ay ka qaldantay annaga wixiina soo gaaray oo fasalla iskuulo lagu dari lahaa ama iskuulo cusub la dhisi lahaa sanadkii horena xogayaha ka hadlay intaasoo iskuula fasalla lagu daray sanadkaana hadda kuwa qorshaha ku jira in lagu daro mar walbana waxaan sameynaa markaan wax helno waa soo kormeernaa iskuuladan soo kormeernaa baahiyahan qiimeynaa cidda shaqada nala leh ayaa nala qiimeysa waxaa la salagta gareeyaa 3 ama 4 iskuul wax laga qabanaya la qaataa ayaa wax lagu daraa qaabkaas loogu daraa ee qaab qofku asagu anaa iri ama anaa idaacada ka hadlay aniga hal igu soo bilaabo waxa laga yaabaa mid kale idaacada ka hadlay in laga baahi badan yahay oo priorities ka laga leeyahay laga yaabaa sidaas marka wax lagu qaybiyaa oo wax lagu maartay ay ku socdaan xafladaha ustaadku wuxuu yiri xafladaha inaan ka qayb galan diyaar u nahay laakiin iskuulka xaflad qaabsanaya ama in arday la dhiirigeliyo raba asaga laga rabaa inuu yahay degmada dad ay soo dirto laakiin hadii xafladii uu qabsado oo shaqadiisa uu ku filan yahay anaguna waa u hambalyeynayna culaysna ma jiro anagana shaqooyin kale oo inta ka badan ayaan ku mashquulsanaa agaasimaha ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan hay'adaha iyo degmooyinka si isku la shaqeeyaan hay'adaha iyo degmadu si wanaagsan isku la shaqeeyaan bila aadan shaqeynaya qaladad laga ma dhawaayo waxa imaanaysa sida mar badan dhacda ama wasaarad ama hay'ad aad arkayso iyadoo shaqadii ku dhex jirta ayagoo tuulooyinkii jooga ayagoo assessment sameynaya ayagoo oo wax qaybinaya haddana inta badan waxaan isku daynaa inaan u cudur daarno oo shaqadaas aan la fududeyno ayadoo ay ka fiicneed inay inta degmada yimaadeen ay yiraahdaan baahiyaha 1 iyo 2 iyo 3 maxaa idin ah oo ahdaaftii ama prioritieskii degmada u yaalay laga amba qaado taas marka inta badan ama 95% sidaas wanaagsan ay ku socdaan hay'aduhu iyo dawladdu ay anaga inta badan waxa naga sareeyay galmudug wasaaradaha naga sareeya wasaaradaha ay soo maraan wasaaradaha ay shaqo walba ku ataaj garaysan tahay sidaas ay degmada ku timaado waa maasanta qaar ka mid ah ama intooda badan ba soo gaaraysa dhagahooda marka laga hadlayo meelaha public servantga ama bulshada ay haysato waxa ka mid ah caafimaadka
dhowaan waxaa maqalnay in hay-adda isbitaalka gacanta ay ku haysay isbitaalkii mashruucii isbitaalka ay ku wada uu ka dhammaaday wararka qaarna waxay sheegayaan in weli uu sii socdo arrintaas gudoomiye xogta aad ka haysaan oo bulshada la wadaagi kartaan barnaamijkaas sida wax uga jiraan waa jeclaan lahayn inaad dadba noo faahfaahin kartaan barakaatu magacaygu waa Axmed Cilmi waxaan ka mid ahay barayaasha degmada Cadaado su-aashayda waxay qusaysaa kale inaan laga filanayna laga yaabaa laakiin su-aashayda waxay qusaysaa nadaafadda iyo amniga marka anoo ka raali gelinaya mid amniga dib aan u dhiganaya nadaafadan ku soo hormaraya degmada Bariyaha waxaan kala shaqeynaynay anagoo madaleera bulshakaab barnaamij la xiriira nadaafadda marka 6 bilood soo socota inta sanadka ka dhiman kumaysan jirin qorshaha nadaafadda degmada nadaafadeeduna waayahan hoos bay u socotay maxaa in ka qorshaysan nadaafadda guud ee degmada Cadaado su-aashayda mid xagaawiya su-aasha labaad waxa weeyaan amniga qusaysa 4 sano soo dhaafay waxaa jiray degmada Cadaado dhacdooyin ka dhacay sida kufsi isku dhac hubeysan degmadan waxaa soo maray ilaa 4 taliye ciidan qorshaha 6 bilood soo socotana uguma jirto wax la xiriira amniga oo degmada inoo soo bandhigtay dabcan waxa la dareemayaa in doorasho soo socoto maxay qorshaha amniga ee degmada Cadaado ay la leedahay hay'adda maxaa la raahdaa booliiska iyo nabad sugidda iyo hay'adaha kale amniga shaqeeya waa masantii marar badan waxaa la canshuurta dadkeena kuma baraarugsano oo ma dhiibayaan marka maantadan xaafadeena waxa ka dhacay qof muwaadin ah gurigiisa intii lagu soo galaa la tumay askari baaday waxana lagu haystaa waxay u badan tahay canshuur qofka bisma dhiibaa lahay laakiin ma ahayn qofka muwaadinka in la dilo hadda su'aasha aan qabo waxay tahay ma loo sameeyay dhalinyaro oo dadka ku baraarujiya canshuurta iyo wax qabadka deegaanka lagu qabta canshuurta mana mudan tahay muwaadinka in xaafadiisa intii lagu imaad la tumo ka bilaabo nadaafadooda qorshaheedu markastaba kama baxsano waa qorshaas ka soo tixana nadaafadu kambani haya godadkii qashka lagu tala galana way jirtaa waa lagu tala galay qashka marka wixii nadaafada gaabis ku jira ayada in la xoojiyo waayo ma ahane qorshe kale hadda loo dejinayo uu leeyahay qaab kale loo maareeyaa ma kale loo qabaa ma jirto laakiin wixii gaabis ku jira dadkana waa isla sheegnay Ramadaan kadibna waa ka shaqeynay nadaafada haddana waxaan rajadeeda qabnaa inaan xoojino haddaan soo dhac mid canshuuraha oo su'aalo badan ka yimaadeen horta way ficnaanad waqtiga yaraa maahan inaan halkaas saaro budgetka 2026 dowladda hoose miisaaniyadda dowladda hoose ay dejisay bishii inay soo xarooto waxaa qoran inay soo xarooto $65,000 xagee ka soo xaro miqyaal iska dejiyaa horta canshuuraha la qaado waxa laga qaadaa irdaha ganacsiga suuqa xoolaha dukumeentiyada qofka uu rabo oo meesha ka qaato baabuurta la dejinayo dhulka qofkii faax dhisanaya shantaas hadda shaqeeya qofka caawi dhigi kara waxa inta sahayn gurigeyga inta lagu yimaado canshuur laga qaado waa sheegi kara firi haddana waa unless waa canshuurta dowladda hoose xaq u lahayd mushaar la qaataa dowladda hoose mushaar bay goosataa xaafadaha guriga laftirkiisa canshuura lagu leeyahay ma laga qaadaa canshuuraha la sheegay horta intee waa kooban yihiin wax kale aan jeclaan lahaa maqalka samaaqaanu baahay canshuurta marka in la qaado maanta taariikhdu waa 18 canshuurtan waxa lagu talagalay gooda bisha in la baxsho gabadha walaashaas waxay ka dhawaajada maanta qof canshuurta loo ciqaabay 18 bisha mareeda oo aan canshuurteedii la bixin oo ka kaalayo canshuurtii aaway warkeen xagaa loo aadalay waa sax way jirtaa baraarug la'aan bulshada ah horta waxa la rabo baqaarka cadaad ugu weyn oo ganacsi waxa laga qaadaa $30 bishi $30 daan ilaa iyo 18 ka bisha isla haysan in la isjujuubo la isqasbay waa imaan qof ilaa hadda u dhintana noo moogin oo taxbad lagu dhifto asaga telefiiri oo ciidankii dilay laakiin in canshuurta la iska qaado annagu waxaan basugeynaa caawna tiraadiin war dadka annaga in la qabeen baash xoog ku qaado dadka lacagta ka qaado
wacyigelintana meesheeda taala waxa soo haray Abbas wuxuu yiri hal mashruuc oo dawladda hoose ay ku faanaydo ma jiraan horta hal maahan mashaariic badan jirta mashaariicda sida la sheegayo mashaariicda horta qaybina dawladda fulisa dawladda raagibigeed macaamilda federaalka Allah ka dhigo waxa mashaariic maqleysiin qasrada dawladda ta laga soo baxsho oo canshuurta bulshada laga qaado lagu fuliyo way kooban yihiin waa dakhli laga helo wal bangiga hay'adaha kale ay ka shaqeeya waxaan ku kabaan dawladda hoosana waxay ku kabtaa kaba laga rabaa okay anaga maxaan qabanaa marka waxaan ka shaqeynaa master plan-ka degmada oo mashruuc ballaarana oo waax kasta ama magaalada banaankeeda waxa wadooyin la faray iyo waxa naqshad la saaray $1 oo shisheeye leeyahay oo sokeeye kale leeyahay koo bixi shidaalka degmada leh cagafta degmada leh waxa kamid ah wadooyinka la falay wada 20 balciid 20 mitir yahay oo 7 kiiloomitir socda oo galeeda ilaa xaruntaas beeshaas Imaam Shaafici markii soo laga dhis waxa kamid ah wadooyin fara badan oo magaalada labadeeda gees uga baxo meel 12 oo cagafka degmadu ay fashay waxa kamid ah cagafta laftirkeeda aan sheegay cashuurihii kumiyo iyo wixii dadka laga qaaday oo abadooda joogana lagu fulshay gaadiidka la keenaa kamid waxaasan bidan hadda xarumiye aan sheegnay 20% cashuura lagu daray soolarka cadceed ku shaqeeya $1 hay'adaha kuma jiro $1 dawladana kuma jiro cashuurtii gudaha caada laga qaaday iyo cashuurta dadka dibadda aada laga qaadaa lagu dhis marka dawladdu wax badan ay fulisay oo sheeganayso way jiraan isbitaalka iyo su'aalihiisa inta kalena waa ka gudbi doonaa waxaan codsan lahaa fahan ahaan iyo sistem ahaan canshuuraha degmada aanay muhiim yihiin sida Abbas u leeyahay degmada waxay ku faantanta ma lahayaa in wax lagu faantamo wax la dhiso waxa ka horeeya dhaqaalaha in la baxsho dhaqaalaha markii la bixiyo wax dhismayaan adeeg baxa haddaan dhaqaale leeyahay anaguna wax dhismayno adinkana waxa la saarka meedii dhaqaalaha marka hore bixin aad ma santi gudub soo dhow kaliya waxaan la weydiiyay taliyaal badan ay isbedelay horta waxaan rabaa taliyaasha isbedelkooda iyo su'aashooda midna ma quseeyo taliyaasha gudoomiyuhu ma magacaabo xilkana kama qaado taliyaha booliska galmudug iyo madaxweynaha galmudug ma magacaabaan xilkana kama qaadaan waa federaal marka su'aashaas malaha xasan sheekh ugu fiicneed annaga shaqo ku leeyahay oo naga sarreysa taliye degmadan soo maray oo mushaarkiisa iyo magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa ay federaal ahayn ma jiro sidaas daraadeed annaga waxaan la leenahay wada shaqeynaan la leenahay amniga nagala shaqeeyaan gacmihii degmada yihiin laakiin haddii 5 laga qaado iyo haddii 6 laga qaado iyo haddii ka badan laga qaado iyo haddii hal midna loo daayaba hal mid oo xilka ka qaadi karnaa ma jiro annaga hal mid oo xil aan u magacaaban karno oo asaga aan barbar dhigi karnaa ma jiro hadda taliya la soo magacaabay isbuucaan Soomaaliya soo dhaaf wuuna jooga wuu shaqeeyaa yaa soo magacaabay gudoomiyaha degmada soo magacaabay madaxweynaha galmudug soo magacaabay taliyaha booliska galmudug soo magacaabay maya waa laga yaabaa meelaha qaar inay tala ku leeyihiin waa laga yaabaa laakiin magacaabistu halkaas weey taas waxaan rabaa horta halkaas inaan daayo su'aalihii kalena xogayaha ka jawaabay isbitaalka arrimihiisa laftigooda isbitaalku wasaaradda caafimaadka galmudug oo si toos u hoos taga shaqooyinkiisana ayada ayaa maamusha iyo hay'adda Save the Children hay'adda in mashruuceedu dhammaan rabo muddo dheerna ay soo shaqeynaysay mashruuceeduna uu gabaabsi yahay 2 sano la soo dhaafay warbixinteedan haynay madaxweynahan u gudbinay wasaaradda caafimaadkan u gudbinay hay'adaha maxaa tiraahdaa safe oo kaleeta ah ee internationalka ah isbitaalada gacanta ku hayaan u gudbinay qaarkoodana madaxweynaha la kaashanoo dhan hay'adahaas waa inay maartay isbitaalka ka howlgalaan haddii safe ay ka guurto agaasimaha isbitaalka iyo isku duwaha iyo dhammaanteena israacnay iyo dad kale oo waxgarad oo deegaankan jooga guddi uu leeyahay isbitaalku baahiyaha ay soo gudbiyaan degmada wixii ka quseeya 100% aan ka howlgalayna mar walba 100%na wixii annaga nagu saabsan ka degmo ahaan waa ku guuleysanaynay wixii annaga awoodeena iyo systemkeena ka baxsanna waajibkeena ka gudanaynay iyo inta maartay tabarteena ay tahay su'aalaha kale xogayaha ka jawaabay maxaa ku faani kartaa waxaan ku faani karnaa inta xogayaha ku sheegay waxa aan qabanay oo dadkeena ka qaadnay
degmada marka anaga imaanaynay waxaa yaalay baabuurka dabdamiska ah iyo aragadiyaha yaalay hadda 5 baabuur taala saddexda baabuur oo anaga aan soo kordhinay hal mid hay'ad noo gaday hal mid ayaa hay'ad iyo dawlad naga sareysay cid naga sareysay gad inta kale ta anaga gadanay qaabka aan rabno dadkeena oo keenno qaabka aan rabno gadan hadday noqoto layrarka hadday noqoto dhulka iyo shaqada si u socoto hadday noqoto hawlo badan oo kale ee degmada hadda kuwa ka socda waxyaalo fara badan oo degmada dhexdeeda ka socda oo aan ku soo kordhinay ayaa jira oo aanan hay'adana aysan noogu soo kordhin cid kale tana aysan naga caawinin waxa xildhibaanku igu daray nabadeynta kale maalin kasta ayaama dhaweed waxa la aadi jiray ama bari ama galbeed ama meel ay problem ka taagan yahay wax qabadkii hadda xogayo soo bandhigana waa kamid yahay hay'ad maalgelisa iyo dawlad maalgelisa midna ma jirto meel kastoon tagnana culays naga soo raacay waxyaalaha anaga qabsanay waxa kamid ah degmada hadda marka tagtid waxa ku xiran CC camerooyin ku xiran hay'ad naga caawisay oo noo soo xirtay ma jirto anaga xiranay fingerprint shaqaalaha lagu baratay xaadiriya ku xiran hay'ada naga caawiyo ma jiraan anaga samaysanay system yaa samaysanay loo kala oo anagu aan shaqadeena ku hormarino anaga qabsanay marka wixii anagu aan qabsanay iyo wixii hay'ad ama dawladda aan ka soo qaadanaba waxa anaga dadaalkeeni iyo joogitaankeeni iyo jiritaankeeni systemkeena ku yimid waa maasantii okay su'aasheedu waxa waaye degmada waxa soo gala maaliyadda ay qaado ama canshuura ay qaado ama dakhliga soo gala haba iska yaraado ma xumo laakiin ma jira saddex arrimood ama arrimo u gooni ah oo marka koowaad lagu qabanayo wixii la helay qodobka waxa waaye degmadu waxay haystaa dabdamis inta badan hadeer waayaha dam waxa soo kordhay guryaha korontada ku dhageyso waxa dhacda in marka dabdamiska loo baahdo la waayo darawalkiisa ama shaqaalihiisa degmada maxaa ugu qorsheysan in kiisaska noocaas ah u badan ama hantidaas burburayda in si degdeg looga jawaabo maxaa u qorsheysan degmada aan maasantiin الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمد عبد علي كمدة دلنيرة سبورتس كدقمة عيادو halka waxaan rabaa inaan laba fakaro aniga fakarka iga guuxaya inaan ka hadlo midda koowaad waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo marsharafka iyo aqoon-yahanada halkan iyo golaha deegaanka iyo maamulka degmada oo 3 sano ugu hogaamiyay hawlkar iyo waxqabad la taaban karo waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo 3 sano wixii halkaas aan ku aragnay waa wax la taaban karo ma aha waa kuturkutaan ma waxaan halka uga jeednay shaqo la qabtay waqti la geliyay juhd iyo dhaqaale ku bixeen waa hadii aan nahay bulshada ku nool degmada Cadaado inta badan qofka wax qabta waxa laga yaabaa inaan si gooni u fiirino laakiin qofka markuu wax qabto waxaan jeclaan lahaa in la dhiirigeliyo la yiraahdo waa mahadsan tahay waxaad qabatay shaqo aad qurux badan hadii aan ku hadlay afka dhalinyarada degmada Cadaado ku nool sportska waxaan rabaa hal codsi inaan soo jeediyo codsigaas wuxuu ku saabsan yahay maadaama aan nahay dhalinyarada ku nool dhalinyarada sportska degmada Cadaado 80% ay yihiin bulshada ku nool degmada Cadaado dadka ugu badan waxay mudan yihiin dhalinyaradaas maadaama dalku aadayo doorasho qof iyo coda waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaheena sharafta leh maadaama aan intaas dul qaadanaynay aamusnayn aanan mudannahay shaqooyinka halkaas nala ka tusay annaguna aan xaq u leenahay in halkaas oo kale aan ka daawano garoonka degmada Cadaado oo muuqaalka ay leeyihiin waaxaha guriga hooyooyinka kan dhalinyarada aan xaq u leenahay annaguna in halkaas ka daawano garoonkeena la jaan qaadaya garoomada caalamka waxaan rabaa inaan gudoomiyaha sharafta la ka codsano inta uu xilka joogo inuu taariikh la taaban karo oo bulshada iyo dhalinyarada sportska uu dhaxal nooga tago waa codsi waana uga mahadcelinaynaa shaqada uu qabtay الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan salaamayaa gudhamaan marti sharafta iyo maamulka degmada inay halkaan isugu yeeraan ama dhalinyarada iyo su'aalo la isweydiiyo waxaan rabaa inaan su'aal mar dhow gudoomiyuhu anagoo tiimka macallimiinta ka mid ah su'aalo gudoomiyuhu nagu soo leexiyo qaladka waxa iskala macallimiinta anagu ma ogin inaan qalad leenahay
maadaama macallimiinta aan nahay dee research laga sameeyey oo la yidhi tana lala shiray macallimiintii maamulkii degmadu ay yidhaahdeen warsaanaa jirtay xal u keenana ma jiro dee qorshaha degmada u degan oo ay dhihi karto degmadu qaladkii waa ku leedihiin su-aashaas raba inaan guddoomiyaha ku celiyo su-aashayda labaad dee markaan fiirsho xogayuhu wuxuu noo sheegay presentation fiican wuxuu noo sheegay degmada dhaqaalaheedu inuu yar yahay meeshaana waxaan uga jeedaa dhallinyaradii aawo ganacsatadii ma dadkii jeebkooda wax ku jireenba ma joogaan meesha dad masaakiin oo dee waa yar yihiin ganacsata dhaaxa ma joogto marka ganacsatada loo yeero doontaa la soo dhexgeliyo dee ganacsatadii waa maqan yihiin waa mahadsantihiin ama dagaalka tusaale ahaan iiraan ka dhacay ama maraykanka ka dhacay wuxuu saameyn ku yeelanayaa Soomaaliya sidaan wada ognahay waxaa yaraaday waxyaabihii khayriga ahaa ee hay'adaha caalamiga ay bixin jireen ama WFP ha ahaato ama hay'adaha kale ha ahaatee arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay in dad badan oo tabaalaysan oo hay'adaha wax siin jireen inay hoos u dhac ku yimaadaan dad badan oo kamid ah marka dadka kaamka jooga ama bulshada qiimadeeda kala duwan waxay isweydiinayaan war maxaa ku dhacay waxyaabihii soo gaari jiray la soo gaari jiray ama kaaraha aadeen ama wax kala aadeen marka arrintaasi saameyn noocee ayay ku yeelatay bulshada tabartooda hooseyso oo degan maxaan ku raahdaa magaalada Daafeed ama kaamka ku nool oo hay'adaha wax ka heli jiray hoos u dhac ku yimaadeen arrintaas inaad raacsiisaan waa jeclaan lahaa waa mahadsantihiin waa la baxbaxay waa guraanadkii wasaare u dambeeyay guddoomiyaha noo xiri doona insha Allah aan iska dul qaadano intiyaarta aragtay labada su'aalood hore oo Cabdullaahi bisan rabana ka jawaabo inta kale guddoomiyaha u deey doona dakhligu waa sax waa yar yahay balorta inta soo xarood waxyaabaha gooniyaha lagu qabto ama mudnaanta koowaad la xiyeen dakhliga soo xarooda mudnaantiisa koowaad waxa la horta rana cost wixii ku dhaqaaqay lahayd degmadu haddii noqon lahayd qarashkii ama shidaal ku baxo aba mushaara ku baxo ama wixii kale institution dhan oo dhisan oo meel ku yaal wuxuu ku dhaqaaqi lahaa horta ay soo dhaafilaad sida caadiga ah markii dhaqaale laga hadlayo waxa loo kala qaadaa waa horumarin iyo socodsiinta howlaha socodsiinta howlaha soo dhaafilaayeen damiska waa run culays badan ka jira gaariga damiskaasi asliyan waxa lagu tala galay dabdam markii darawalka iyo shaqaalaha ku qoran inay gaarigu daaran yahay 24 hour shaqaaluhu hoos jifaan laakiin daruufaha dhaqaalo jira oogis meel waxa ku qoran dabdamiska ilaa iyo 10 shaqaale waxa la awoodi leeyahay ilaa hadda in la isku celceliyay qofkaani volunteer markii hore shaqada ku soo lagu galiyay volunteer loo tababaray haddana maadaama intaas uu soo shaqeynayay wixii xuquuqdaas leedahay aan la dhihin volunteerkii dadka ka yimid marka ka shaqeynayay wali wax badan ka shaqeeyaan inuu dah jira waa sax laakiin alxamdulillah musiibooyin badan oo laga yaabo dadku inuu sababi lahaa oo qaybtooda xog gaarinay dad waxa u jira xog gaareen wali ma arag dad laga yaabo in la dhaho ama qofkii guriga ka gubtay ama dadkii dhahan damisku waa daahay damisku waa maqnaaday laakiin wali ma arag inuu leeyahay shaqaale damiska waxa gaaray intaas dhaawacantay maxay ku shaqeeyaan waxa dab kasto dhacmida shaqada lagu dhaawacmo waa yari haddana duruuftaasay inay si xamilaan 7 saac inima ayaga la kiciyaa gurigiisa laga soo wadaa wararka qaarkii ku jira ilaa soo bax waa gaabiska ku jira iyo waxa ku jira qadar qorsho wuxuu yahay in la tayeeyo lagu daro bal volunteerka ku jirteen ku sii wada leeyahay laakiin waa dadka sugaya inay xuquuqna yeeshaan si shaqada u wadaan هذا ما ستين تقول قدومي هو ديدونا مس قدومي كحينكا سبورتيغا وحو دحل هنو لو كغا تغو وا ددالينا ان شاء الله ادينكنا سو دعي ان شاء الله ان الهي نوافجيو ان دحل uga tagno sportiska waana kaga tagnay laakiin kuwa dheerada rajeynaysan dheerada sportiskuna stadium ka weyn basay sportiga u yaqaaniin meelo badan oo sportisaha jira salaxyo badan magaalada dhexdeeda ka jira degmada dhexdeeda mid aan idin kaga dhisnay dhalinyarada loo dhisay odayaasha looma dhisin haddaad keentaan dhalinyarada degmadu ay keensato guddiga maamulaha waa ku wareejinaynaa waxay qalabkiisiina waa u dhammaystiran yahay xataa baroniga lagu ciyaari lahaa waa yaallaa dhalinyarada iyo entertainmentigoodu ka mid yahay adinku nidaam inta samaysataan imaada
kan weyna insha Allah wixii aan ka qaban karno waa ka qabanaynaa waana u dadaalaynaa haddii la yiraahdo ustaadku su'aashii nagu soo celiyo wuxuu yiri macallimiintu qaladka ma difaac u gala waxa difaacaas wuxuu ku fiicnaa inaan mid shakhsiyadaada gashay kaliya maxaa yeelay macallimiintii inta isku keentay adii laftaaga xog maada arurin laakiin anagu inta isku keenay waxaan idhi tuule hebel macallin loo diro markaasaa nin loo diro la waayay 34 macallin aan qaybinay sanadkii la soo dhaafay sanadkii ugu dambeeyay oo macallimiinta la qaadanay laba jeer macallimiinta la qaatay soo ma macallin intaan u bandhignay tuule hebel dadkeeniya degan waxbarashay u baahan yihiin ustaadow tag naga aqbalay ma jiro ustaadka marka waxa laga yaabaa meelo badan inuu soo ogeyn inaan maalin kasta la joogto aad u fiicnaan lahayd hadda tuulooyina macallin naga ah macallin Cabdirasaaq Booska uu joogo macallin magaalada joogo aan ku buuxinaynaa hadduu naga aqbalo tuulooyinkaas iskuulada ka xirmay mid ka mid ah u diraynaa naga aqbalo haddii ustaadku uu aqbalo is okay dhibka iyaga ma hadduu aqbali diidana dhibka ha qaateen iyo inuu xogaa diidmadu inay xaggooda ka timid hana la qaateen qof walba wuxuu leeyahay aniga tuulo ma raba haday tuuladu fog tahayna ma jirto waxaan rabaa mid ganacsatadii meeday ku ganacsatadii anaga hana weydiinina ganacsatadii adinku inta is weydiisaan ganacsatadii meeday adinku is yiraahdo horta aaw ganacsatadii magaaladan ثانيا كلن كان أذنكنا والدين كعسومي أنا كنا ونور كعسومي قال لي إلى الصومال ببلغ أجندة إسكالة ماشى ده أنجونا حرنتي دقمة معه كلن كان كلن دقمة معه وأنا العسومي بالشدي قريب كم ده إن إيمان إنسان لو كعسومي أذنكنا أساس اللي نعسومي مركا الصومال ببلغ أجندة لو يدينا لكن وحن أوجع كلن كان كلن كي كهري الصومال ببلغ أجندة هل كان هناقبتي كان حسيت هذا العسومي صلاة الرهور تكيم hal qof ganacsatada bas aan iska lahayd kulankaas halkaana waxa anaga loo diray inaan soo bandhigno sanadkaas wixii alaala wixii finance ahaa waliba si faahfaahsan loo soo bandhigay waxa la soo bandhigay dukaan walba iyo intii laga qaaday iyo intii dukaan wax laga qaaday iyo bil walba waxa degmada soo galay horta meeshan wax ku qarsooni ma jiraan maxaa yeelay wax cash lagu bixiyana ma jiraan wax EFC lagu bixiyana ma jiraan wax walba waa digital waa online hadda hadii dhalada mar labaad loo daaro waxa la soo saari karaa bishan wixii degmada soo galay iyo wixii ka baxay maxay yeelay marka degmada wax soo galayaan hal system wax ku soo galaan hal dariiq waa ku baxaan laba dariiq ku baxaan marka ganacsatada inay yimaadaan dalkooda dhistaan canshuurta bixiyaan waa qasab gabadha mar dhawaad waxay tiri canshuurta qof maanta qasab looga qaado qof bariyo ku bixinaya ma jiraba qof walba bariyo ku bixinaya mid labaad hal mid la rabo inay faantaan horta canshuurtu xaqu liman ya iskale ya xaqu leh ma qofka laga qaadaya iskale masakan qaadaya iskale waxyaalihii 3 sano ka hor markaan canshuurta bilaabayna dadka qaar aaminsanaayeen maanta in dad aaminsanaada ma aha canshuurta marka laga qaadayo xaq adiga aaleedahay ma aha wax laga qaadaya xaq dawladeeda laga qaadaya xaqii dadweynaha laga qaadaya wax adigu aaleedahay oo sadaqa adigu baxsanaysa ma aha ina ogaato hortaas wallahi sadaqan ku siiye iska qaado ma aha marka laga hadlayo diinta islaam maxaa tiraahdaa islaamka marka laga hadlayana maxay ahayd aayadda quraanka fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum soma yaa qaadaya dadkaas xuquuqdooda systemka iyo maamulka iyo dawladda iyo hay'adda dhisana qaadaysa Soomaa hadii marka qofku uu aamino aniga waxa bixin ma aniga waxba hadaan wax kugu waajibin oo wax kugu waajibay aysan jirin diid waxba bixinin laakiin hadii wax kugu waajibeen wixii kugu waajibaa la rabaa in laga qaado oo dawladnimo kugu waajibay taasna waxa la rabaa inaan sidaas u fahanno dhamaantii waa mahadsantihiin Soomaali Bubble Agenda waa u mahad celinaynaa oo kulamada noo qabatay dadweynahana waxa laga rabaa fadli ku dirrada iyo meediyaha iyo meelaha kale inaan wax laga sheegin qofkii inuu wax sheega rabo dhowr marna waa niriye halkaan inta timaado wax sheeg halkaan ay ku cadaanaysaa waxa sheegaysa inay wax sax yihiin iyo waxa ay sheegaysaa inay wax sax ahayn waa laga la doodaya laakiin nin kaliya dooday iyo nin maxal dhulka gamay ma gafaan kaliya marka doodo ma gafaysid
واسحسنتهاي مامول كيسانو كو قلدمي مامول كيسانو كو قلدمي ayaan hadda waxaana la weydiinay laamigaana la weydiiyaa maalin kasta laamigan 16 guddiya ayaan u dhisnay account-kii aan u sameynay xeer hoosaadkoodii aan sameynay dartiib aan u sameynay mi iyo magaalo research aan ka sameynay baadiyaha lacagta ka soo xaroon kartaa aan xisaabinay qurba joogtaan xisaabinay siyaasiyiintaan xisaabinay ganacsatadaan xisaabinay waxbarashadaan xisaabinay lacagta ka soo xaroonaysa farta ka saarnay maxaa dhacay ma garanaysaan 16 kale oo 16 oday ah oo hadda rabtaan magacooda aan idiin sheegayno oo ayagii lid ku ah la sameeyay oo maxaa loo sameeyay in 16 kan guddiga ay shaqeynayso tilaabo qaadin ma aamini karno hebelaa ku jira kan ha laga fiirsho 16 koodii waa la bedelay guddi kale aan sameyn waa ku wareejin waa la shaqeyn waxa la rabaa inaad tiraadaan guddiga horumarinta aaway guddigii shaqadan loo qabtay meeye maxay shaqadii u qaban waayeen in saas liilaha rabaa haddana odayaashii iyo kuwii guddigii shaqeynayay uu ka shaqeyn waayay ilmahoodii ameediya soo istaagay markaas walaal laamigi dhiiqa ku jirta laamigi dhiiqa taalay laamiga dhiiqada taal waa kii abaha diiday in la dhiso waa ma santa